intii hore oo dhan waxaa la moodayay in TPLF laga awood batay oo markaa magaalooyin badan laga qabsaday waxaana keentay in magaalo ka magaalo ay ciidanka Itoobiya furanayeen oo kolba ay ku dabaaldegayeen laakiin hadda dagaalkii haddana weji kale ayuu isku bedelayaa waxaa la sheegay in magaalada Adwa dagaalkii ugu xoogganaa ugu qaraadhaa iyo waxa la jabkii ugu weynaa ee soo gaadhay ciidamada huwanta ah ee ciidamada Itoobiya ee Eritrea inuu ka dhacay magaalada Adwa TPLF ayaa sheegaysa kumanaan ciidanka Itoobiya inay suuqada u qabteen oo waxay dileen iyo firxaday iyo waxay ku hareeraysan yihiin ay ka dhigeen magaalada Adwa oo waxa la sheegay in ciidanka Itoobiya magaalada galay in square laga qabtay boogtay wax gibigooga wala la qayb waxaana la sheegay oo xagga sartu ka quluntay ee lagu dilay ciidanka Itoobiya inay tahay dhinaca dadka Adwa u dhashay oo la sheegay in la kala garan waayay shacabkii Adwa iyo TPLF shacabka ninka ku dhaafaya ayuu baahday xagga ku soo istaagay ma boqol ama 40 bay dhulka dhigayaanba marka waxa la sheegay marka shacabkii la kala garan laayahay jabhadii ay ku andacoonaysaa marka dhinaca xukuumadda baleed waxa la sheegay wada hadallada hadda socda in ay xukuumaddu ku hanjabayso in ciriga dhulba ka duqeyn doonto oo aanay maatii ciidu u aabayeel hadii kale ay iska soo saaraan nimanka TPLF ta iyo taageerada ay siinayaan ay joojiyaan baleed hanjabadaasi baa la sheegay in dhaxmar haddaba waxa cadeynaya baa lagu leeyahay guuladahan ay sheeganaysa TPLF waxa lagu yaqaanay in marka ciidanka Itoobiya ay 27 ugu dambeeyay guulaha gaarayaan muuqaal ay ka soo duubiyeen kulba magaalada qabsanayaan iyo horumarada ay sameeyaan laakiin Adwa shib ayay galeen baa leeyahay waxba Soomaaliya bandhiginba ilaa iyo haatan waxa la sheegay marka inay magaaladii ay dib uga yaaceen wararka kale ay imanayaan waxay sheegayaan in ay xukuumadda Itoobiya mas'uuliyiin ka socda iyo dadka deegaanka ama qabiilada magaalada Adwa ka soo jeeda dadka hormuudka u ah ayaa shir leh waxaana la sheegay in xukuumadda Itoobiya iyo mas'uuliyiintaasi magaalada Adwa ay ka wada hadlayaan oo ay u sheegayso markaas xukuumadda Itoobiya in kooxaha TPLF ta gabanaya magaalada Adwa ee dagaalada ka wada inay iska soo saaraan marka waxay haatan ku digaysaa walaal xukuumaddu in cagta la marin doono Adwa oo cir iyo dhulba laga doqayn doono oo markaas amsax laga dhigi doono oo la aabayeeli doonin hadii kale ay TPLF ka soo saaraan magaalada Adwa haddaba jabka soo gaadhay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea ee magaalada Adwa ka dhacay ayaa la sheegay inay keentay cadaadiskii xoogana iyo moogtay qabkii ay lahayd xukuumadda Itoobiya wada hadaladan South Africa ka dhacaya ee marka reer galbeedka ay ku lahayd wax TPLF la ma jiraan adeere ka fadhiista anigu waxa wada hadalaan galbeene cagtaban marinay ay lahaayeen maalmihii hore oo dhan ayaa la sheegay haatan xaaladdu inay isbedeshay dhinaca wada hadallada hadii aan yara eegno waxa la sheegay horta wada hadallada in la isku mari laayay laba qodob baa la sheegay ilaa iyo haatan gir inay taagan tahay xukuumadda Itoobiya waxay taagan tahay aan heshiis gal oo aan TPLF la heshiinay waa inay marka hore hubka dhigi sameeyaan hubka waa inay iska dhigaan hubkooda soo dhiibaan markaas uma anagu dagaalada joojinayna oo gargaarka iyo cuntada bilaabayna oo moogtahay nabad TPLF kala noolaanayna laakiin intii qori haystaan wax nabadii ma jirto dagaalkuna ma istaagayo dhinaca kale Tigreeg iyaguna waxay taagan yihiin hub joojin mayno hubka dhiibi mayno ay taagan yihiin intaad idinku hubka haysataan aad dilaysaan marka horta saxaaxa in dagaalka joojinaysaan oo moogtay dad caalami ah moogtay dhinacyada caalamiga ama midowga Afrika ama Mareykanka ama wadan awood leh oo talaabo qaadi kara haynoo kala saxo heshiiska hadii qoladii heshiiskaasi jabisa hadhow caalamku talaabaha ka qaado oo halala dagaalamay marka waxay taagan yihiin annagu ma garanta hubkayga dhigi mayno ilaa aad noo saxaxdaan inaydan dilaynkay oo talaabo moogtahay dagaalka joojinaysaan oo ciidamada kala baxaysaan Tigreeg geer iyo gerbe arrinku haatan u taagan yahay maanta oo axada loo balansanaa in markaas heshiiska la kala saxeexdo ilaa waqtigan aan warka duubayo oo ilaa 6 ku dhow maqribnimo geeska Afrika ay wali hadda wax war kama soo bixin South Africa waa la isku mari laayay waxa tagay xitaa ra'iisul wasaare ku xigeenka Itoobiya Dameka Makanan oo markii hore 6 xubnood u diray wada hadallada u diray ayaa hadda ay dantu ku khasabtay leeyahay inuu tago South Africa oo khasab laga soo dhigay beesha caalamka ay ku khasabtay iyagoo hadii ay xukuumadda Itoobiya ra'iisul wasaare ku xigeenku mataliya guddiga dhexdhexaadinta xagga xukuumadda moogtay hadii ay diidaan loogu hanjabay in caalamka oo dhan cunaqabatay saarayaan Itoobiya saadarteed wuxuu ku khasbanaaday laba qodob ayaa kaxeeyay baa leeyahay qodob waxa weeyaan qodob xaggan cadaadiskan Adwa kaga yimid iyo ciidamada lagu hayay baa gam laga dhigay oo marka awood inay TPLF leeyahay oo arkeen ayaa hadda wuxuu arkay in gorgorta la galay leeyahay aynu wada hadallo
cadaadiskii badnaa hayaan la hadalnaa cid aan nala dagaalamaysa ma hayne ayaa meesha ka baxay bay dadka leeyihiin militariga falanqeeya qaarkood qodobka labaad waxay leeyihiin cadaadiska ay saarayaan reer galbeedka iyo wadamada caalamku ay leeyihiin cunaqabatayna afar jibaaran baa la saaray haddii kale nabadda daqaata haddaad nabad diidaan inaad la gashaan baa lagu yidhi cunaqabatayna la saarayaa hadiidina moogtahay dee gardiid waa la diid garta goobta lagu qaadaya yimaada haddii kale tallaabaa laydinka qaadayaa baa lagu yidhi baa layidhi kadib saasuu u tegay moogtay oo lixdii xubnood horuu diray decision maker may ahayn go-aan may gaari karin marka kaalay saxiix baa lagu leeyahay isaga waxaa loogu yeedhay baa layidhi saasuu u tegay bay leeyahay wararka qaar laakiin ilaa iyo hadda waa lixdii maqribnimo waxaa la filayay in 4 ilaa 3 galabnimo heshiisku uu soo baxo oo heshiiska lagu dhawaaqo laakiin ilaa hadda idinla hadlayo moogtahay wax ka soo baxay ka soo naasacadi ma jirto weliba waxaa la sheegayaa in laga yaabo in 72 saacadood oo kala dheeraada oo moogtahay ilaa 3 cisho ama 2 cisho kala dheeraada in markaa lagu daro wada hadalladaasi baa laga yaabaa waayo labadan qodob baa la isku bari laayahay hubka dhiga iyo dhigi mayna horta heshiis noo saxiixa dagaalka joojiya labadaas la isku mari laayay dhinaca kale qolyaha dhaliilaha iyo jeer ciidanka Itoobiya uu badnaa dhinaca Tigreega ayaa waxay soo bandhigeen muuqaalo video ah ciidankii Itoobiya magaalooyin ay qabsadeen iyo deegaano Tigreega kamid ah bay yiraahdeen oo sutida u qabanaya dadka yacni guryihii gubaya waxay soo saar iyagoo leh guba dhamaantood dabka qabadsiiya hadal noocaas oo moogtay kolba guryo dabada loo qabanayo holac ka baxaya moogtay muuqaaladaas oo aan la soo bandhigi karin laakiin sawiraan laga soo qaaday muuqaalhaana waxa laga heli karaa de meelaha kale baraha bulshada ay leeyihiin kooxaha TPLF Tigreega xawdooda iyo moogtay dadka kale Itoobiyaanka ayaa laga heli karaa adoo si kasta ha ahaatee taasi waxay keentay markaa dhaleecayn caalamiya oo loo jeeday dhinaca ciidanka Itoobiya la leeyahay guryihii dadkii moogtahay shacabkii ayay dab qabadsiinayaan kumanaan guri baa la sheegay in markaa sutid u qabtay dab qabadsiiyeen laakiin dhinaca Itoobiya ayaa iyagu mas'uuliyiinta taageera waxay sheegayeen in activistayaashu meesha la gubaya inaanay Tigreeb ahayn ay tahay bay yiraahdeen xadka Suudaan markaa Humeera marka laga baxay dhinaca Suudaan oo waqti dagaaladu moogtay TPLF halka weerar ka soo qaaday moogtay barnaamijyo hore wadin ku soo qaadan jirnay dhinaca Suudaan in ka soo weerarteen markii weeraradaas dhacay bay yiraahdeen TPLF la jabiyay laga daba tagay ayaa guryaha ku yaala Suudaan oo ay gabaad ka dhiganayeen dabka la qabadsiiyay bay leeyihiin maba aha meeshan Tigreeg ay ku doodayaan marka dhinaca Itoobiya adigu si kasta ha ahaatee dagaalada hadda socda iyo moogtahay kooxda TPLF guulaha sheeganayso cadaadiskan ay beeshii caalamku saarayaan ku qaylinayaan Itoobiya moogtahay la leeyahay waxa la idinku sameeyay waxa soo dhan waxa ka badiyo soo oran kartaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo aan moogtahay warkaasi haynin kolba moogtahay meelska booqanaya maanta waxa uu tagay beer weyn buu furay oo marka dadka saaxiibtinimada iyo farxadda iyo caruurta lagu madadaaleynayo oo caruuro badan oo Itoobiya halkaas ku moogtahay iskala baashaalayay isagoo u muujinaya inuu nin xariis badan yahay oo ubadkii jecel oo dadka jecel oo moogtahay shalay toole wuxuu beel dhalo qamadiyo tagayo moogtahay warshad casri oo qamadiga iyo qalab casri qamadiga lagu sameeyo beeraha qamadiga kaasoo sheegay inaanay uga baahnayn reer galbeed qamadiyo bayna siiyaan buu yiri wax alla kale na siiyaan jirto wadan caawimaad u sugayay buu yiri gacanta hoos dhigtay reer galbeedkii oo weligii horumar gaaray ma jiro dib u socod inay ku ridaan bay doonayaan buu yiri oo marka aad qayrka ka hadid moogtay oo weligood gacanta hoos haysatay war waxaad beeratid samaysatid wax lagu noqdaa يعني دنبال نوعاas ayuu ra'iisul wasaaruhu soo qorayay maantana wuxuu sheegay farxadda iyo saaxiibtinimada iyo caruurta oo la ilaaliyo moogtay naxariistu inay wanaagsan tahay marka warkaaba isagu ma hayo wala cadaas reer galbeed wala TPLF moogtay meel qabsatay awood yeelatay waxa isku ma mashquulinayaba marka arigaas dad badan ka yaabiyay oo sheegay ra'iisul wasaaruhu leeyahay habar ba iska hawle heeladayna tuba in moogtay waxaan socdo baan warka hayninba وهيك برنامج كان ينتسو كله يتني كل تينا دم نبتكليو